Every day, there was shooting in the Somali capital between government troops and Ethiopian forces on one side and Islamic and Hawiyya clan insurgents on the other. afar iyo toban sano ka hor waxaa Muqdisho ku soo duulay ciidamo ka socda dawladda Itoobiya oo ururka TPLF uu markaa hoggaanka u hayay duulaankaas oo lagu xasuuqay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii si faduula loogu tagay kaaga sii darane duulaanka waxaa qayb ka ahaa ciidamo Soomaaliyeed oo uu hogaaminayay Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo Itoobiya doonaysay inay ku fadhiisiso kursiga madaxtinimada Soomaaliya dagaalkaasi wuxuu ahaa meeshii ugu dambeysay ee ay ku dhimatay Soomaalinimadii iyo Islaamnimadii Soomaalida dhexdeeda maanta TPLF ayay ku foorartaa inkastoo aan jeclaan lahaa inay Itoobiya iscunto oo dagaalku sii daba dheeraado hase yeeshee waxay u muuqataa in TPLF laga xidhiidhsiibay Itoobiya siyaasadeed guud ahaan laakiinse xadhigii ay TPLF Soomaalida u dhigtay 30 sano ay xukumaysay wali waa halkiisii Soomaalida oo 5 milyan lagu qiyaaso ayay TPLF waxa u sameeyeen 5 maamul oo 5tuba qabiil ku dhisan yihiin nimanku cadawsana waxaad moodaa inay ugu talagaleen inaan Soomaalidu waligeed ka soo kaban qabiil iyo meeshay dhigeen Soomaalida waxa la gudboon in xarkihii loo dhigay ay dib u eegaan oo bal ay isku dayaan inay kala furfuraan dadka reer Muqdisho waa dad wanaagsan ragii u soo raacay digreega ee xasuuqay ayaa maanta caruurtooda iskuulada waxa loogu dhigaa inay madax u haayeen unbelievable bal waa kan Xasan Bariise oo ka waramaya wixii maalinta Muqdisho ka taagnaa sida ay BBC u sheegeen dad goobjoogayaal ah waxa uu dagaalka maanta oo bilowday wax yar kadib taqriir dhexe xalay ahaa kii ugu darnaa ilaa iyo 16 sano ee la soo dhaafay goortaas dadka reer Muqdisho ay hurdada kaga soo salaleen gantaalada xeebta badan ee loo yaqaan BMK oo ay magaalada la dhaxayeen ciidamada Itoobiya ciidamada waxa ka horjeeda dhalinyaro qabiile ku abaabulan oo u badan dadka reer Muqdisho kuwaasoo maanta maalintii saddexaad dagaal kulul kaga soo horjeeday ciidamada Itoobiya oo doonayay in ay magaalada ka samaystaan doodo cusub ama fariisimo cusub oo military goobjoogayaal ku sugan magaalada Muqdisho waxay BBC u sheegeen in uu dagaalku ugu xoog badnaa deegaanada ku xeeran garoonkii Muqdisho Stadium deegaanka Xamar Jadiid xaafadda Xarriyaale xaafadda Tawfiiq iyo suuq Baxaariyo Gubta kuwaasoo dhammaantood ka agdhow garoonka Muqdisho Stadium ay ku sugnaayeen ciidamada Itoobiya oo la sheegay in ay halkaasi ku go'doonsanaayeen oo ciidamada Itoobiya ay doonayeen in ay soo furtaan sidaas darteedna waxay deegaanadaasi oo dhamay marti u noqdeen magaalada aan loo meeldayin kuwaasoo ku hadsanayay guryaha dadka shacabku degan yihiin goobjoogayaashu waxay kaloo BBC u sheegeen in goobaha ay ciidamadu isaga hor yimaadeen ay ahaayeen laba ama saddex oo kaliya laakiin ay magaaladu gaartay meelo aad u badan ilaa iyo hadda lama oga tirada dadka ee ku geeriyootay dagaalka maanta hase yeeshee wararka laga helayo dhinaca goobaha caafimaad in ka badan 20 dhinteen in ka badan 80 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kuwaasoo la dhigay isbitaalada Madiina Kaysanay Al-Hikma Hayaat iyo goobo kale waxayna tirada guud ahaan 3 maalmood la soo dhaafay gaaraysaa 350 qof oo dhaawacyo ah iyo 150 dhimasho ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka sidoo kale waxa iyana jira dhaawacyo ama dhimashooyin kale oo aan laga awoodin in la gaaro goobaha caafimaadka oo ku xamilan goobihii ay wax ku noqdeen halka kuwa geeriyoodayna la isaga aasayo goobo aanan qabuuro ahayn sidoo kale goobjooga ku sugan Muqdisho ayaa BBC u sheegay in ay dagaankooda oo kaliya ku aaseen 7 meyd oo askar Ethiopian ah oo wax meesha ka qaadan la yaayay sidaas darteedna caafimaadka dagaanka dartiisa ay u aaseen dhibaatada dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka soo gaaray waxa weeliya baraka aad u weyn iyadoo qoys saxayay oo waliba baabuur watay dhinaca degmada Afgooya ay BBC u sheegeen in ay wadada 30 kiiloomitir oo kaliya ku jireen ilaa iyo 4 saacadood taasoo muujinaysa baaxadda dadka saxaya oo wadada oo dhan xiray iyadoo dadka saxayana ay aad u badnaayeen ilaa iyo hadda ma jirto wax waan ah amaba wada hadal u dhaxeeya labada dhinac ee hay'ad waa ciidamada Itoobiya ee dadka reer Muqdisho lamana hayo wax yar ah oo ka soo baxay dawladda ku meel gaarka oo sheegta in ciidamada Itoobiya ay iyadu kaalinayeen waxay dawladda Itoobiya sheegtay in ay magaalada Muqdisho ka qabsadeen dhowr goobood isla markaana dileen ilaa 200 oo qof oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kooxaha saxdoonka ka wada Muqdisho
sidoo kale waxaan weli la ogeyn inta uu dagaalkan sii socon doono iyo waxa ay natiijadiisu noqon doonto midna hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa muuqda waxa weeye oo keliya dil dadka qaar ay xasuuq ku tilmaameen marka loo eego gantaalada GMK ee lagu garaacayo goobaha rayidku degan yihiin burbur weyn oo magaalada loo geysanayo iyo barakac weyn oo dadkii rayidka ahaa iyadoo uu welibana dagaalkii sii socdo